السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى أنت مالك صدق داوانا سنة هلكني وهم ذو أنا وأنا عبد الرحمن وحرجيني أنا عارف مالك مالك صدق داوانا يسو هدي أنا ليش وقتي واد ما زنت هي channelك برنامج كبه صاحب بدأ يسومالي بأشر جريه هدي أنا نقول عصبت هنا ودي بقولكم بنسهرنا هاي وحير بعينود مغولا يحردا سبسكرايب نصوصر هذا برت الفيسبوك داوانا سنة فرم نصوده رمضان كريم ومعلنتي كوبيو تمناد إنه صوني الله يقبله طبعاً كي هراء رحمة إلهي رحمة هينسية ودماتي طبعاً كي دم دافع يا باللوضي إلهي دم بيجنا هداف قيبت النوع عشرة إني تحنها أها لكن كان السويال كي حر عيسى ياد بنا سحبت أقوم بهالعلية كومنتية دي إني صحيتان كينا سيدي تهيبة مارت ورا الصعدة وحق كلمة دي عن خلدبة برتا كومنتيها كسوة صحة هذه بدو ما سنتين إني كمان علمي بدني إني كمان عقلي بدني وحاسة شعرهاي إن هم ماكت إذن تصو مستقبل كان ماشي وكو وناكسين هاي إن تهاي نغن كاني إن ندب وصول الله بنو وهجاك دقليدن أو عشر كاني وقيبتي سكاري لبات ندوي مركز دقليدن إنه قادنا إننا ونبض حدك مركز لبقول اسكو دعوه إدبات الحمرتو سيدابا لبضل الله حدا النبض كو dhaqan baa jira la maro process baa jira la maro process waa maxay waa in horta xeerku waa xeer nabdeed olaadana uu hor joogsadaa laakiin hadana aadana la yahay waxba dhacaya wixii dhacay sidii loo xalin lahaa ayuu xeer ku dhigay hadaba qaybtan waxaynu ku baranaynaa iyada oo qof walbaaba uu xeerka ilaalinayo hadayba lacalaba gacan dhacdo mag sidii la oran jiray ganaax sidii la oran jiray gardarro sidii la oran jiray waa soo wada baratay laba qabiil seen nabadooda loo xidhaa qayb labada qabiil mid ka mid ah ayaa wuxuu dirayaa dumarkaasi waa shardi dumar waaweyn oo dhalma baxay inay noqdaan xigmad baa ku jirta waxa weeyaan maadaama cul la yahay dumarkuna ay maxas yihiin horta dumarku iyagu waa hay'adda lanqeyrta casoo cidna ma dilayso haddii xataa xabadi socotay lama dilayo oo xeerkii waa la xurmaynayaa oo reer walba magacooda ilaashanayaan hadday maxas laayaan iyo maato dee waxay noqonayaan magac bi'is horey baynu usoo baranay saa daraaddeed marka horta hooyadaas intaa la eg iyadoo horta waa qof dumarahoo waa iska nabadgeliyo qaybta labaadna waxaa looga jeedaa inaanan nin fal xun oo farsamo xun uusan u muhonin qof weyne hooyaa oo waayeela uusan u muhonaynin waxaa kaloo xikmada ku jirta inaanan la odhanaynin dili mayne gabdhahan yararka ee ugubka inoo soo qabta oo la guursado oo sidaas maarata ku dhalaan iyagoon la dilin taasna waa laga taxadarayaa xigmadahaasoo dhan oo meesha ku hoos jira ayaa dumarkaa la dirayaa dumarkaa la diray mara cad baa loo dhiibayaa dumarkaa iyo marada cad maxay ka dhiban yihiin nabad baanu tolkayow doonaynaa bay ka dhiganta xagga markay tagaan dumarkii dhigooda ahay la midka ahaa baa lagu darayaa mara cadna waa loo dhiibayaa markii marada cad loo dhiibo waana loo dhaashaya waa loo subkayaa subagna waa loo dhiibayaa markaasaa la soo celinayaa meeshii ay ka tageen kuwii hore baa ku soo laabanayaan maxay ka dhigan tahay marka waxay ka dhigan tahay marada cadi nabad ku dhowr bay ka dhigan tahay labada mara cad la isu dhiibay subagaasi muxuu ka dhigan yahay nabaduu ka dhigan yahay isdheefsiin iyo walaalnayn iyo dheef wadaag ba ka dhigan tahay iyo dhaymo maxay ka dhigan tahay dumarka xaggaa ka soo laabtay ee dumarkii la yimid nabadii aad noo keenteen waanu aqbalay ka dhigan tahay intaa markii la isla arko yaa leeyahay nabadii hadda hala xidho odayaal baa la dirayaa nabadoona meel u dhaxaysa labada dhinac baa la isugu imanayaa xaggana waxaa ka imanaya xaggana saddex labadii maree caddayd baa la isku tolayaa dhulkaa la xaadxaadhayaa dhulkaa marka la xaadho ayaa geed la soo goynayaa waa la gamuurayaa geedkaasoo gamuuman baa dhulka meel nadiifa lagu turqayaa waa lagu masaxayaa waa lagu malaasayaa maradii baa lagu tulgoglayaa 6 nin baa dul fadhiisanaysa halka ayay 6 nin markay fadhiistaan way ducaynayaan ducaa meesha ka bilaabanaysa ducadaas waxaa marka la odhanayaa ceel nabada allow nagu aroori carro nabada allow nagu noolee cirka iyo dhulkaba allow nabad allow naga gargaar ayaa la leeyahay way soconaysaa
cirkow roob dhulkow rays ilaahow biqilka iyo beertaba ilaahow biqilka iyo baraarkaba noo beer baa la leeyahay markaas waa hagaag waxaa kale oo iyadana ducada kasii mida ilaahayow nabad baahsan nabad baahsan oo camimta meel walba oo sida rayska u duxda oo sida reebka u da-da oo badhiidhi idaha oon saxashadii lahayn oo badhidii idaha oon saxashadii lahayn oo kurskii geela oon kuleylka lahayn oo qorjuc malaba iyo qurqurac caana ah ilaahayow nasiibaa la leeyahay maasha allah soomaaligan fiiri hadda ilaahayow dadka inta dhuuxa leh iyo inta dhiiga leh uurka iyo oogadaba ilaahayow nabadgelyo u geli badga iyo burcadka ilaahow bog iyo beerkaba burcad isu mari la dhihi jiray waaye ilaahayow xoolaha sararta cadiin u geli baruur u geli cayilaan weeyaan jidhkana ilaahu caafimaad u geli ilaahu xooluhu ay noo cayilaan candhada ilaahu caana u geli alla ay noo dararaan nabad degdeg ah ilaahayowna sii aamiin ayaa la leeyahay nabadaa marka la xidhayo iyo 6 nin iyo goobjoogayaasha iyo dadkaa la isu geynayo rag baa mamnuuc ka ah hamoodin iska soo orad reerka baad ka dhalatay ninkii wax dilay waa ka mamnuuc ninkii wax boobay markii dhib ku dhacaya waa ka mamnuuc ninkii dhiirigeliya colaada waa ka mamnuuc ee dhalinyarada kiciyey ninkii dabka shiday ee colaadaba soo bilaabay waa ka mamnuuc ninka isku dirayay waa kii dadka isku dirayay waa ka mamnuuc ee lahaa war idan kama adkay ku socda kii maxasta laayay magac biiski ceebaalihii kaasuna kuma jiro maxastaasi waatee waa maxas nin uu soo laayay ilaa colaado kale ku soo laayo guud ahaan ninkii gacan ku dhiglahaana kuma jiro oday dhiig ka tallaabsaday dhabar ma noqdo yacni erga ma galo dhabarku waa dangiigsiga ama waa lafdhabartaa lagu socdo sow ma ah haddaba nabaddu waa go-a la wada huwado ayaa la yidhi ninba diidin oo goor walba goodol ah waa nabad baa la yidhi geed hadhaweyn oo dadkoo dhan wada gaadhaa jira oo waa nabad baa la yidhi ceel biyihiisa la wada cabbaa jira oo waa nabad baa la yidhi waxaa jira gogol lagu wada seexdo oo dadka oo dhan gaadha oo waa nabad baa la yidhi gabyaagii la odhan jiray xaaji gabay xaddi isaaqta tol jecel allah u naxariiste inay naanaystahay aan malinaya qowska la geliyay waa kii lahaa sow nabadii suuriyadaad martaba sabab qarsoon maaha sow nabadii suuriyadaad martaba sow nabadii suuriyadaad martaba sabab qarsoon maaha sow nabadii sahaydaada oo sida tidoon maaha ya gabaygaas ayuu tiriyey waa hagaag nabadu nin way waraabisaa ninna way wareentaa ninka ay waraabisa nabadu waa ninka u dadaala ee nabadda xidha ee wanaagga wada ninka ay wareerisana waa ninka xumaanta ka shaqeeya ee nabadiidka ah labadaas bay u kala baxaan hees baa jirtay 1994 maadaama buugga maalin dhow la qoray nabad iyo naq roobaad jannadii naciimaay naas qura wadaagaan naartiyo colaaduna waa nabaro kulul oo naflahay u daran tahay intaasina waa hees weeye haddaba haddaynu markaa dib aynu ugu soo laabanno arrinteennii ahayd nabad xidhka waxaa jirta marka nimankaasi ay isu yimaadaan waxaa la sameynayaa kutub ayay isweydaarsanayaan iyo weysooyin ayay isweydaarsanayaan horta gorof caanaha loo keenayaa gorofka caanaha wada si isweydaar dhalinyara u dhiibaysa waa la wada kabinayaan gorofka caanaha markaas caanahaas waxay ka dhigan tahay nabadii xagga dhaarta kutubna iyo weysooyinna waa la isweydaarsan hadday kala diin yihiin
waxay ku dhaaran qolo walba diinteeda. Waxaa dhici karta dad aan muslimiin ahayn oo inaga baxsan in nabadaas laga xidhayo. dabeedna maadaama xeerka innagu aynu leenahay xeerkeenna ayaa markaa lagu salayn jiray oo qoladaa kalena uu xaq siin jiray. waxaa la samayn jiray marka sumal iyo sameyn baa la qalayaa, badhidooda lasoo jarayaa, waa la shiilayaa, 2 nin baa soo qaadaysa, 6 nin bay u keenayaan, way qabanayaan. waxay ka dhigan tahay axdi iyo ballan inay tahay. arrintaas waxaa la yidhaahdaa dhaarta sumal iyo sameyn baa la yidhaahdaa. waxay ka dhigan tahay kama baxayno ballankaasu, nabadaas waa xidhan tahay, qolada ka baxda way jabtaa sida taariikhda lagu hayo. marka way baxayaan oo dadkay dhex marayaan. wacad jabiyo jab baa la yidhi, ha ina jabinina, way dadka dhex marinayaan. tusaale waxaa la mid ah oo iyadana mataqaanaa tusaale ku filan. colaad baa jirtay hadda ka hor ciise iyo godobiirsiga dhex martay. godobiirsiga iyo marka iyagu dhex martay nabad baa la xidhayay, waa la isu yimid oo waa la is hor fadhiistay. nabadii markii laga wada hadlahayay ayuu nini baanay, isaga oo markaa araaranaya ciisaha in inta ay ood wadaaga yihiin ee ay nabadda wada dhigeen maahine kuwa galbeedka jira intay soo dusaan ay nabadda jabiyaan, isagoo arrintaa u duurxulaya oo isla ciisahan kuu dhow dee dhulkan degan awdal iyo jabuuti iyo dhulkan soo dhow, hadday kuwaasi aad nabad wada xidhdaan, kuwa mesha iyo shineeliya ay shici iyo afdam iyo jira intay soo yimaadaan iyo diri dhow iyo hadday idin doc wareemaan iyo duurxul iyo u dhigay. ku qoordiidka ku cooflow waran caarad madowba caynka soo geli doono oo caruurtu naga layne kaanaya celin doona buu su-aal ku yidhi. wiil goloka fuulka yaqaano cumar hudle la yidhaahdo abwaan ah ayaa meel gaaban kaga soo booday. ciisihii badda hoosiyo baadha meel la yidhaahdiyo buur madow degayay nabad beerka ka doonyo baarax bayaan ka sidnaaye samaroonkan ba'ayow adna baarax miyaayey buu yidhi. wuu sii wadaa weli. haddaynaan baarax ahayno nafta loo ballamaynin birtii baa la hayaaye ninba beer kaa sheego habaqin wey. haddaad nabad rabtana ciise meelu jiro waa isku go-aan. haddaad colaad rabtana ciise meelu jiro waa isku go-aan. nabadda kuwan awdal jooga ay kula qaateen baa ka afdam jooga ay ku gowracan yahay buu markaa ka wadaa. dadkii golaha fadhiyay baa hal mar booday. baarax baa la yidhi wey. halkaa waxaaba loo bixiyeyba nabadii baarax ayaa loo bixiyey. sida ayaana nabadaas lagu xidhay. af baa bilaawe baxsha. okay, gabay baan hadda soo maray. gabay laftiibaa marka lasoo joogsaday. ma la ogolyahay xeerku muxuu ka qabaa deegaamada in laysku gabyo? deriska iyo deegaamada iyo tolka dhexdiisa in laysku gabyo ma ogolo xeerku. sabab dagaal af buu ka bilowdaa, soomaa maqal. af buu dagaal ka bilowdaa. sidaa daraaddeed ganaax baa ka yaala haddii nini intuu gabyo uu gabaygaas xiisad kiciyo. haddii laysku dilo waaba hawl kale oo dee isku dirdirihiibuu noqonayaa. aynu soo marnay hadda. weligaa xeerka dib u xasuusnow. waxaa hadda qiso hore waxaa dhacday. ninbaa xasan gurey la odhan jiray yaa wuxuu u yimaaday qolo gabadh laga qabay oo reer biinla ah oo gabadh baa laga qabay. geel baa la siiyey yarada. geela yarada la siiyeyna waxay caado ahaan jirta inaan sumadda laga bedelin. marka dacaluu lahaa sumadii baa geeli laga bedelay. geeliyo sumadii laga bedelay buu arkay, wuu xanaaqay, gabay buu tiriyey. guulle gabdhaha beele guulle ee gabdhaha beenla cali wayga garanuuge ogaanaha iiga roon gogol dhigoodiiye waxaa go-ay xiniinyaha ninkii
geelka bixiyaaye gablan ha iga dilo gablan ha iga dilo gabanaday guri la yaalaane buu yidhi ekada wuxuu yidhiba maanta haddii geela iyagii sumadda laga bedelay nimankaa gabdhahooda inaan guursada wayga garanuug oo halkaas ayuu iskaga xidhay markaa xamaasad baa kacday oo cirkaa loo booday oo waxaa dhacday markaa in ay meeshii xamaasadu ka dhacdo oo uu nin kale isaguna xanaaqo markay xamaasadaasi dhacday gabayada markii la maqlay waxaa kacday xiisad waxaa arrinkii soo dhexgalay odayadii gelinka waxaana soo saaray guddidii oo fadhiisatay geedka waaruf labadii qoloba waa xukun baa 12 halaad baa lagu xukumay xareed geelle waa lagu xukumay qisaas waxay dhacday 1930 ayaa dhacday dhagalayda laba dublaha iyo qalnaynta waxaa jira nin laba duble la yiraahdo laba duble waa maxay laba dubluhu waa nin jaajuuso oo basaasa oo dad ku dhex jiro oo buus qaata awi dad baa la sinacib yahay col baa jira waa la dagaalamaa colkaas ayuu wuxuu sameeyaa wuu ku dhex jiraa dadku ku dhex jiraa wuxuu samaynayaa xogtu qaadayaa cadowga u geynayaa goldulooyinkaagoo dhan buu sheegayaa ninkaa xeerku muxuu ka qabaa ninkaa warkiisu waa dhib yaryaa waa duuduumaya war arrintaas markay ku caddaato waxaa lagu samaynayaa waa la qisaasayaa ama waa la rajminayaa ninkaa waa dil dhagax baa lagu dilayaa ninkaas meel buuraa la geynayaa halkaa buurtaa la fadhiisinayaa ninka dad ugu xigaa dhagax u horreeya ku dhufanaya waa lagu bilaabaya dadko dhan baa wadar u dilaya mob justice baa lagu samaynayaa yacni kumin dadko dhan baa dilaya dadko dhan ruuxay dilaan dee cid loo raaca ma leh marka iyagu way ogyihiin qofka in la xukumay laakiin waxaa la diidan yahay in gacan gaara laysu raaco waa meel jirta oo qubuura oo la yaqaano oo dadka sida loogu rajimiyo keligiis haddaba ma ah waxaa kale oo xeerku dilay ninka ummadda oo dhan cabsi geliya cabsida ku abuura iyo walwalka khalkhalka abuura ninka dadka laaya iska dila ninka dhagarta badan soo hoyaya nin waaba dilaa oo dadku laayaayo oo dadku dilaa waa la dili ninna gacantiisaa badan oo way dhacday ilaa iyo 5 nin oo hore ayaa dhacday 5taa nin oo hore waxaa ka mid ah 2 nin oo midkiiba 9 qof dilay waa la dilay nimanka kalena sida oo kale nin door galow noqday oo dadka diin jiray waa la dilay waa 5 nin oo adigu nin walba qabiilkiisa iyo qoladiisa meesha ku qorantay laakiin macna badan hadda in qabiilka gaar u sheegno ma keenayso laakiin muhiimadan ka qaadanayna waxa weeye ninka dadka dila iyo ninka dadka isku ma taqaan cabsi geliya iyo ninka dilka badan ee dhagartiisu soo noqnoqoto ninka 9ka ruux dilay 900 halaad baa laga bixiyay markaas la yiraahdo 900 soo kama bixin ha 900 tuu soo wada ka daran isagii bay la soo qabtay waa la dilay ilaa 5 nin baa marka taariikhda lagu hayaa oo sida loo dilay waxaa marka iyada gaar xusid u mudan halka markay marayso ciisihii meesha isugu yimid arrin baa marka dhacday nin baa sidaas oo kale isaguna la oran jiray Meegaag Samatar yaa isna wuxuu ahaa nin dadka dili jiray in geesiya oo waraca oo ku fiican wuxuu ahaa dagaalada caadiga ah la galo ku fiican buu ahaa tolkiis baa intay yimaadeen bay waxay yiraahdeen hana la dilo ninkan hana la dilo 12 gelina Ciise ay gogol u dhigteen dabeedna waxaa la bixiyay magti 900 halaad kadibna waxay dhahaan hana la dilo hana la dilo markii la ninka Ciise markaa arkay waa ninkii geesiga ahaa dagaalyahanka ah Ciise markaa odayaashii meesha waxay yiraahdeen waanu aqbalnay xukunkana waad u hoggaansateen waa sax laakiin ninkan wanaagiisi baanu garanaynaa dagaaladii u galana waan garanaynaa sidoo cadowga nooga dhawayna waan garanaynaa barina cadow baa iman kara ninkan bal maanta hal la daayo markii maanta la daayay saar xarigi looga furay oo aan la dilin laakiin xukunka dilka uu ku dhacay ninkii Meegaag Samatar waa hagaagay gabar baa loo dhisay nin fiican buu noqday dadkiina uu iska daayay dhagar dambana ma uu sagalin xilli damba marka waxaa dhacay intii la soo duulo Ciise la soo waray baa geel la dhacay
rag uu isagu wato hogaaminayo baa geeli ka daba tegay si qurux badan oo xaraga leh bay u soo dhiciyeen gabayba marka geeraar uu ku taamahayo guushiisa dilkiisii uu ka baxsaday iyo raggii maalinkaa taliya caqligooda inuu ku sheegayo dhowr xaba ah yuu ka sii daayey xabaashii qaraweyne hadba lay qardhigayay haddii la iga qabsiiyo yaa qalaadin lahayo soo qarqoorin lahayo qaalmo keeni lahay yaa geela dhicin lahaa qaalmahan maanta aan siiyo guushan yaa keeni lahaa ayuu leeyahay intaa ayaynu maanta soo dulmarnay sheekooyinka iyo xikaayooyinka iyo xigmadaha iyo wixii soo dhacay ka sheekayntiisa waa cibro iyo qisas weeye qisooyinkuna waa lagu cibri qaataayo waa la isaga sheekeeyaa taariikhda buug wuxuu isugu jiraa taariikh iyo xugum iyo xeer aad barato iyo qodobo aad barato iyo taariikh iyo dhacdooyin aad barato brainstorming maskaxda aad tuujiso iyo isugu jiraan intaaba maxaa looga jeedaa da'yarta Soomaaliyeed marin habowga inagu dhacay inay jirto wadda aynu kaga bixi karayno ku xidhnow cashiradan iyo buuggan xeer ciise waana dhaqankaagii waa dhaqankeenii waa sooyaalkaagii waa sooyaalkeenii adigaa lagaa rabaa inaad ilaashato haddaad tahay Soomaali waa hagaag intaynu ku kulmi doono qaybta 30aad oo aniga Cabdiraxmaan oo idin leh sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh